bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka xogta TV qodobadaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidanka liyu boolis oo dad iyo gaadiid ka kaxaystay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ciidanka xoogga dalka oo dhaqdhaqaaqyo militari ka wada gobolka Gado sargaal ka mid ahaa ciidamadii al-shabaab ee weeraray ceelcade oo la qabtay xiisad u dhaxaysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ka taagan gobolka Sanaag iyo dagaal laga cabsi qabo tahriibayaal ay ku jiraan Soomaali oo laga sii daayay xabsi ku yaala Liibiya warka dibadda waxa madaxda Ruushka iyo Shiinaha oo ku kulmay Moscow haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kasta oo aan channelkan soo gelino qodobada aad maqasheen iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal ciidanka New Booliska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay gobolka Hiiraan ay ka kaxaysteen dad rayid ah iyo sidoo kale gaadiid ay leeyihiin shacabka ku nool gobolkaasi dadka iyo gaadiidka ayaa waxa laga kaxaystay deegaanka Xuday Woogla oo qiyaastii 34 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga magaalada Beledweyne sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka goobjoogayaal ku sugan deegaanka Xuday Woogla ayaa sheegay ciidanka New Booliska ay wateen 6 qof halka 6 gaarina ay hore u kaxaysteen ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysay in ciidanka New Booliska ay gobolka Hiiraan ka kaxaystaan dad rayid ah iyo gaadiidkii ay lahaayeen hagaag ciidamada xoogga ayaa maanta dhaqaaqyo militari ka wada gobolka Gado wararka ka imaanaya gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan inay ka socdaan gobolka howlgallo militari oo ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab deegaanada hoostaga gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa laga soo sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ay ka bilaabeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo wali ku xoogan gobolkaasi saraakiisha gobolka Gado ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in dhawaan al-shabaab laga saari doono deegaano ka tirsan gobolka Gado oo ay maamulaan dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in guud ahaan dalka laga saari doono al-shabaab iyadoona dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayo deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada Gado Hiiraan Jubbooyinka Shabeellooyinka iyo gobollo kale halka nagala socotaan daawadayaal waa xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin ah sargaal ka mid ahaa ciidamadii al-shabaab ee weeraray ceelcade oo la qabtay nin ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab sida uu sheegay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo Ibrahim Lujunde Maxamed ayaa sheegay inuu ka soo baxsaday al-shabaab isagoo baxsanayana xabado lagu furay waxa uu sheegay in muddo 10 sano ka mid ahaa al-shabaab isagoo ku dagaalami jiray qoriga AK47 sida uu sheegay Ibrahim oo afka Soomaaliga ku adeegay ayaa sheegay in markii uu soo baxsanayo uu galay howdka kadibna xilli habeen ah lugeeyay sidaasna ku tagay Baarsanguuni oo iska dhiibay ninka la qabtay ayaa ka tirsan qaybta jabhadaha ee weerarada ku qaada xiriyaha ciidamada waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa dagaalamayaashii al-shabaab ee ka qayb galay weerarkii ceelcade ee gobolka Gado oo dhacay sanadkii 2015 ee lagu galay xirada ciidamada Kenya laguna dilay boqolaal askari marka laga soo tago sheegashada saraakiisha ciidamada dawladda ma jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dhanka al-shabaab waxaana inta badan shabaabka ka gaabsadaan weerarada cirka iyo howlgallada ka dhaca deegaanada ay maamulaan Maxamed Bedel Xasan taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay ninkaasi al-shabaab u qaabilsanaa sirdoonka xogahan uu ururin jiray markaana gobolka Sanaag xiisad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa ka taagan gobolka Sanaag iyo dagaal laga cabsi qabo wararka ka imaanaya deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xiisad dagaal oo u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland laga dareemayo gobolkaasi arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Soomaaliland ay ciidamada u fara badan geysay deegaanka Yuubo u dhow magaalada Ceerigaabo iyadoona halkaasi saldhig militari ka sameysteen sidoo kale maalin ka hor ayay ahayd markii maamulka Puntland ciidamo hor loo dirtay degmada Baran iyo deegaanada kale oo ka tirsan bariga gobolka Sanaag balse wararka qaar ayaa sheegay in ciidamada Puntland iyo Soomaaliland ay ku wajahan yihiin deegaanka Hagdimo oo aan waqtigan midkoodna joogin waxaana laga cabsi qabaa in dagaal halkaasi ka dhaco dadka deegaanka ayaa sheegay inay bilaabeen inay ka barakacaan deegaano hor loo ka tirsan gobolka Sanaag tahriibayaal ay ku jiraan Soomaali oo laga sii daayay xabsi ku yaala Liibiya muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso 3000 ayaa wali ku xiran saldhigyo ay dawladdu leedahay oo ku yaala magaalada Tripoli halkaas oo u dhow meelaha uu dagaalku ka socdo hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga ayaa wareysay in 96 qaxooti ah oo muhaajiriin iskugu jira laga sii daayay xabsi lagu magacaabo Zindaan oo ku yaala caasimadda Liibiya haddana lagu hayo meel nabdoon oo ay ku jiri doonaan
ilaa iyo inta waddanka laga saarayo. Kooxda muhaajiriinta ah la sii daayay ayaa waxay ka soo jeedaan dalalka Soomaaliya, Eritrea, Itoobiya waxaana ku jira ilmo dhawaan dhashay. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in hadda aad loo daryeelo muhaajiriinta oo ay dhibaato badan ka soo gaartay xabsigii ay ku xirnaayeen. Meesha hadda lagu hayo oo ay hay'adda mas'uul ka tahay ayaana hooy u ahaan doonto ilaa waddanka ay ka baxayaan. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in hay'adda ay dadka sii doonto raashin, gabaad, daryeel caafimaad, taageero maskaxeed si looga saaro tiiraanyada ay xabsiga ka dhaxleen. Xaaladda xabsiga Zindaan aad ayay u xun tahay ayuu yidhi afhayeenka. In halkaas lagu noolaado aad ayay ciriir u ahayd, ma jirin nadaafad fiican, halis caafimaad ayaana ka jirta ayuu hadalkiisa ku sii daray. Xaaladda ammaan ee magaalada Tripoli way xun tahay waxaana dagaalamaya ciidanka dawladda caalamku uu aqoonsan yahay ee ciidanka uu wato Khalifa Haftar. Markaana daawadayaal warkii dibadda, madaxweynayaasha Shiinaha iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa intuu ku guda jiray booqasho 3 maalmood ah oo ku joogay Moscow waxa uu ku qeexay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin inuu yahay saaxiibka ugu wanaagsan. Waxay madaxdu diiradda saareen ganacsiga iyo xiriirka u dhaxeeya labada waddan. booqashada uu madaxweynaha Shiinaha uu ku tagay Ruushka ayaa waxay imaanaysaa xilli xiriirka Mareykanka uu la leeyahay uu ragaadiyay dagaal ganacsi. labada dhinac waxay kala socdeen xirmooyin ganacsi. madaxweynaha Shiinaha ayaa beerta xayawaanka ee magaalada Moscow waxa uu geeyay 2 xayawaanka qabowga ku nool ee loo yaqaan panda. Arbacadii ayuu madaxweynaha Shiinaha u tagay Ruushka waxaana uu shir jiray la yeeshay dhigiisa Ruushka uu la leeyahay xiriir saaxiibtinimo aad u weyn. 30 jeer ayuu sheegay inuu la kulmay Putin wuxuuna yiri waddanka Ruushka waa dalka ugu badan ee aan booqdo. Shiinaha ayaa doonaya inuu ka faa'iideysto xiriirka uu la leeyahay Ruushka maadaama uu xumaaday xiriirkii uu lahaa dalka Mareykanka. daawadayaal waa naga intaa warkii galab ee Xogta TV. haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kasta oo aan channelkan soo gelino iyo wararkii ku dhaafaba.